kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxa ugu waaweyn daawadayaal ciidanka JNA oo ishaleeleen ciidanka sida jinka u dagaalamay dalka Suudaan iyo khasaarihii ugu weynaa oo kala gaaray magaalooyin horle oo JNA qabsatay iyo Xaftar oo dhibaatadii ugu weyneed ka soo food saartay kadib markii xubno ka tirsan xisbigiisa ay ku kaceen qodobada kale daawadayaal aad ku maqli doontaan wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda xagee ku ogeey dadkii dhibaatada xooggan ay ku haysatay badda Malaysia iyo u dhaxaysa dalkaasi Bangladesh kadib markii loo diiday dal ay galaan ee Rohingya war ayaa idinka haya daawada qiimaha leh ka soo kordhay qodobada kale daawadayaal ku maqli doontaan wararka waxa dhinaca diblomaasiyadda siyaasiyiintii ugu badneed abid ama ugu horeysay ee dalka Jarmalka oo ku dhawaaqay ama ku baaqay in Mareykanku hubkiisa nukliyeerka uu kala baxo dalka Jarmalka iyadoo dalalka isku qurinayana ay sheegeen in aysan khatar gali karin nolosha reer Germany dalka Mareykanka iyo madaxdiisu waxay ku adkaysanayaan wali inay hayaan cadayn ku saabsan in uu dawladda dalkaasi Shiine ay samaysay xanuunka loo caalayahay ee dunida halakeenaya ayagoo sheegay inay cadayn buuxda u hayaan qodobadaas iyo kuwa kale adiga haya daawadayaasha qiimaha leh waa wararkii u calaha dhinaca diblomaasiyadda waa 4 May waa 20 waa maalmo isniin ah waa Ramadaan Kariim daawadayaasha qiimaha leh waa wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabo isla markaana qodobka ugu horeeya daawadayaasha qiimaha leh dalalka Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa si weyn uga mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiisay dawladda dalka Turkiga madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu mahadcelin gaar ah si shakhsiyan ugu diray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo shacabka reer Turkiga kadib saacado markii ay gaadhay diyaarad military oo qalab iyo agab markaas dhinaca neefsashada kuwa laysku gaashaamo iyo qalab kale oo dhinaca la dagaalanka xanuunka safmarka markaasi ka dhana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay wuxuu yiri anoo ku hadlaya magaca shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa walaalkay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo shacabka qiimaha badan ee Turkiga gargaarka degdega ah ee ay na soo gaarsiiyeen taasoo naga caawinaysa dagaalka aan kula jirno cudurka safarka ee COVID-19 madaxweynaha dalka Turkiga ayaa dhankiisa isaguna wuxuu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed uu taageero dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah Axmed Ciise Cawad ayaa isaguna waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo taageerada lixaad kale ee ay Soomaaliya ka heshay Turkiga Mr. Cawad ayaa sheegay in waqtigan adag ay Soomaaliya u baahneed qalabkan isagoo sheegay in qalabka soo gaaray ay ugu muhiimsanayeen kuwa neefsashada dadka ka saacida oo kumanaan gaaraya qalabka markaasi la isku difaaco ee la gashado PPE-ga la yiraahdo iyo qalabka kale ay ka mid tahay kuwa wax lagu baaro isagoo sheegay in qalabkan dhinaca caafimaadku ay yihiin ku muhiim ah waqtigan wuxuuna ka mahadceliyay sida madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo shacabkiisa ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed dhanka kalena afayeenka madaxweynaha ama war ka soo baxay aqalka madaxtooyada dalka Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa la sheegay inuu amray in si toos ah Soomaaliya loo caawiyo la taliyaha sare ee madaxweynaha ahna afayeenka madaxweynaha Ibrahim Kalin ayaa waxa uu sheegay madaxweynuhu waxa uu mar walba nafraya inaan Soomaaliya caawino wuxuuna mar kale yiri hal buuxiyo diyaarad oo loo diro Soomaaliya sidoo kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray walaalkay ayuu yiri Erdogan isagoo sheegay inay ka wada hadleen sida ay muhiimka u tahay in la sii wado gargaarka ay dalka Soomaaliya ka helayso Turkiga madaxweyne Farmaajo wuxuu sidoo kale ka mahadceliyay gargaarada lixaad kale iyadoo diyaarad gargaarka saddexaad oo haatan soo gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaana la sheegay in Turkigu uu haatan uu tafaaciidan yahay sidii Soomaaliya si xooggan loogu caawinayo dhanka kalena saraakiisha ugu kaknaa ee Mareykanka isla markaana marka qaarkood ku taagnaa jiray ama ciribta kaga taagnaa jiray dalka Turkiga ayaa saraakiil siyaasiyiin xildhibaano iyo waliba dad culus oo ka tirsan siyaasadda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa waxa hor qaaday xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo Mr. Pompeo ayaa waxa uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka waxaanu abaal weyn ka haynaa saaxiibka iyaga gaashaanbuurta NATO ee taageerada lixaad kale ku caawiyay dadka Mareykanka iyo shirkadaha Mareykanka oo la daaladhacaya la tacaalista xanuunka shaqo wanaagsan bay hayaan isla markaana waxay doonayaan inay caawiyaan dadka xanuunka uu soo ritay faafaha daran adduunka oo dhan jooga ayuu yiri sidaa daraadeed waxaa muuqata in Turkigu uu qaatay hogaamin lixaad leh waxaanu doonaynaa in aanu si wada jira uga adkaano xanuunkan isla markaana si dhaqso ah uga falxalano ayuu yiri dhanka kalena ninka Congress-ka Mareykanka ka tirsan ee laga soo doortay gobolka gudan ee markaasi dadka uga soo horjeeda siyaasadda caalamka Islaamka Alex Simoni ee West Virginia ayaa waxa uu yiri oo soo qoray waxaan aad ugu mahadcelinayaa deeqda Turkiga deeqda Turkigu ay u soo direen dalka iyaga waa mid aad iyo aad muhiim u ah ayuu yiri waqtigan caawinasana inaan xanuunkan
faafaha daran aan ka hortagno waa deeqsinimo iyo furfurnaan dhinaca qalbiga ah ayuu yiri oo ay taageero lixaad nooga muujiyeen ninka gobolka Ohio laga soo doortay Stephen Chabot oo asagu dadka u ololeeya in cilaaqaadka Turkiga mar walba la hagaajiyo oo ah xildhibaan Congress-ka Mareykanka ka tirsan ayaa yiri kana mid ah guddiga loo yaqaan US-Turkey Relations and American Turkish Relations leeyahay ayaa yiri waan ka mid celinayaa deeqadan ay nagu deeqeen ayuu yiri Turkiya waxayna tahay ayuu yiri in ay safka hore ka galeen marka ay timaado dagaalka looga soo horjeedo iyaga oo caawiyay dadka safka hore kaga jira ee kuwa dhinaca caafimaadka ama waaxda dhinaca caafimaadka ka shaqeynaya diyaaradii labaad ee Turkiga ah ayaa fariisatay maalintii Jimcaha ahayd garoonka ciidanka cirka dalka Mareykanka ee dowladka magaalada Washington DC Andrews leeyahay kaasoo ay geysay qalab kale oo lixaad oo halkaas ay geysay Turkiga ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono hawsha madaxa guud ee abaabulka iyo dhinaca warbaahinta dalka Turkiga madaxweynaha u qaabilsan Fahrettin Altun ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga uu amray in la sii balaariyo ayuu yiri deeqda noocaas oo kala iyo qalabka la gaarsiinaya dunida iyadoo Turkigu uu noqday dalka ugu balaaran ee dalalka ka caawiyay baleexanka halka nagala soo tantaadaya wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixino waaweyn ee dunida iyo wararka ugu dambeeyay way daawashana qiimaha leh ee haatan Liibiya dalka Liibiya ayaa daawadayaasha qiimaha leh waxa ka imaanaya warar lixaad leh oo kala duwan waxaana wararka Liibiya oo badan awgeed daawasha qiimaha leh qodobka ugu horeeya ninka markaasi afgambidoonka ah waxa la sheegaya wararkii ugu dambeeyay inay ka soo horjeesteen qaar kamid ah maamuladiisii hoos imaa jiray degmooyinka iyo raggii isaga u ahaa daacad wararka waxa ay sheegayaan in Ashraf Al-Mayar oo ahaa taliyaha ciidanka guuto kamid ah guutooyinka sida weyn oo la dagaalamaya dawladda uu ku dhawaaqay inuu ka soo horjeedo go'aankii uu Xaftar ku gaaray inuu dawladda inta uu afgambiyo kadibna uu sheegay inuu isagu uu dhisayo dawlad qaran waxaana Ashraf Al-Mayar uu ku dhawaaqay inuu taageersan yahay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Aguliya Saleh waxa war maqal iyo muuqaal oo soo diray ninkan horjooga u ah ciidan lixaadle oo ka dagaalama galbeedka dalkaasi waxa uu sheegay oo ku cadeeyay halkaas isla markaana wacad ku maray in uu taageersan yahay afayeen ayuu yiri Aguliya wuxuu yiri Agula Saleh ayaan taageersan isagoo maqal iyo muuqaal soo duubay ma la aqbali karo in laga soo horjeesto Agula Saleh waayo wuxuu yiri waa ninka markaasi baarlamaanka haysta talaabada uu qaaday Mr Xaftar ayuu ku tilmaamay inay tahay khiyaano wuxuu yiri khiyaano kasta in la aqbalo maaha tan waxa ay ka dambeysay baa kadib markii qaar kamid ah cutubyo iyo degmooyin badan oo Xaftar hoos imaanayay ay ku kaceen saraakiishii ugu badnaa kuwaas oo diidan talaabooyinka uu qaadayo wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Xaftar haatan ay talada ku xuntahay dawaylan ku soo wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan ee dalka haatan Hindiya dalka Hindiyana waxa ka dhacay dagaal culus goobta ay haystaan ee Kashmir qaybta iyagoo haysta dagaal aad u culus oo dagaalyahanada iskaga hor yimaadeen ciidanka sida militariga u tababaran ee dalkaas Hindiya ayaa la sheegay in 5 askari oo Hindi ah iyo 2 dagaalyahan lagu dilay qoraal ay soo saareen militariga ayaa sheegay in la weeraray goob ku taal waqooyiga la yiraahdo Handwara beelbaaleeri goor dambe oo sabtidii ah militarigu waxay sheegeen aaga Handwara waxa ka dhacay dagaal aad u culus kadib markii la isku dayay in dad beelahan shicib ah oo halkaas lagu haystay la soo furto ama la soo daayo kadibna iska hormaaday halkaas ka dhacay iska hormaadka waxa ku dhintay oo nooga dhintay 5 askari oo ah kuwa sida commandosta u tababaran inagoo sidoo kale laba ku dilay ay yiraahdeen weerarku wuxuu ka dhacay kadib markii la isku dayay in guri xagga dambe laga soo galo kaasoo dadka lagu haystay laakiin guri kale oo ka soo horjeeda rasaas laga soo qaaday taasina ay kasabtay in ciidanka halkaas ay ku leedaan wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhimashadu intaas ka badan tahay sida ay sheegayaan dad madax banaan laakiin jabhada halkaas ka dirirta ayaa diiday inay arrinta ka hadasho dalalka Pakistan iyo Hindiya ayaa aaga loo yaqaano line of control oo ah aag khatar badan isku hor fadhiya muddadii ugu dambeysay ee kontonka sanadood ku dhaweyd waxaana labada dal xaaladoodu ay tahay mid aad iyo aad marba u darsanaysa waxaana xaaladda labada dal ay sii xumaatay tan iyo intii uu dalkaasi qabsaday Narendra Modi oo ah ninka markaasi xisbiga BJP ka tirsan ee dalkaasi leeyahay India halka nagala socodaan daawadayaal wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan qodobo warbixino waaweyn ayaa noo soo socda daawadayaasha qiimaha leh ee gaanka gaantanida dhan iyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ee haatanna Algeria dalka Algeria madaxweynihiisu waxa uu ku dhawaaqay talaabo la yaab leh madaxweynaha dalkaas Algeria ee lagu muransanaa markii hore dadka mudaharadayaashuna ay ka soo horjeedeen laakiin markii dambe lagu kala tagay mudaharaadkii maadaama xanuun markaasi faafaha daran ah oo dalka maray ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 100%
miisaaniyadda dalkaasi la dhimayo waxaana miisaaniyadda looga jeedaa lacagta miisaaniyadda waa lacagta qarashaadka dowladda baarlamaanka mushaharaadka yacni waxyaalaha dowladda oo dhan lagu kala wado dhinaca mushaharaadka iyo mashaariicda la jarayo lacagtaasna sababta loo jaray ay tahay laba maado waa marka koobaad shidaalka marka uu leecay ee uu baabacay dhibaato aad u weyn buu dalkaasi geystay oo kamid ah dalalka shidaalka soo saara sidoo kalena waxaa lacagta wixii soo haray mashaariic loo waaridaya xagga caafimaadka madaxweyne Cabdilmajiid Tabani war qoraal xafiiskiisa laga soo saaray ayaa waxa wakaalada wararka ee AFP ay aragtay ayaa lagu yiri waxaa la sameeyaa doona talaabo aad iyo aad looga yaabo in ay adag tahay laakiin lama horaan boqolkiiba 50 ayaa arintaas la jaraya golaha wasiirada ayaa goor sheegay inay qaraarka ansixiyeen iyadoo golaha baarlamaankana ama aqalka sare laga sugayay iyaguna asaas yeelaan sidoo kale waxaa la sheegay in lacagta loo yaqaan markaas mushaharka inta ugu hooseysa dalkaasi oo ah 18,000 diinaar oo u dhiganta $140 qofka ugu yar uu qaato bishii macnaha wala qofka ugu hooseeya mushaharka waa dadka shaqaalaha loo kordhi doono uu ka bilaabo doono oo laga dhigi doono waxa ugu yar qofku qaadan karo laga dhigi doono 20,000 diinaar baa lagu yiri war qoraal sidoo kale waxaa la sheegay in qofka qaata ilaa 20,000 diinaar ilaa 30,000 diinaar aan wax cashuur laga qaadi doonin dawladdu waxay ku sheegtay in arintan iyo talaabooyinkan ay uga leedahay in ay dadka ku caawiso oo cashuurta dadka laga qaado mushaharkooda ama dadka shaqaalaha oo inta badan cashuur laga gooyaan cashuurta ma laga goodoonin wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dawladda oo dhan ay ka cabanayso dhaqaale darro iyo waliba xagga markaasi arsaaqada uu soo food saaray iyagoo dadku ay dib ka baqayaan balse ilaahay israaqada bixiya isla markaana aadanaha u ballan qaaday inuu arsaaqi doono oo arsaaqad fiican si doonay daawadashada qiimaha leh wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda ee ranjii muslimiinta ayagana dhibaatada xoogan ay ku haysatay xeebaha dalalka si la yiraahdo labada dal u dhaxeeya muslimiinta labada dal ee Malaysia iyo Bangladesh ayaa ugu dambeyntii wixii ka haray wixii dhintay mooyaan wixii kale waxa loo ogolaaday in dhulka cagaha soo dhiga daraasiin dadkaas kamid ah oo ku go'doonsanaa badda dhexdeeda toddobaadyo qaarkood halkaas ay ku dhinteen ayaa dadkii jilicsanaa wixii ka haray ee dumarka caruurta iyo dumarka uurka leh iyo dhallinyarada iyo odayaasha laga soo daadgureeyay sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bangladesh oo AK Abdulmumin waxa uu sheegay in ay dawladoodu ay dadkaasi geysay ama u gudbisay deegaanka jasiiradda helada Bashan Shar taasoo ah jasiirad cusbo ka buuxdo ahna jasiirad cusbo iyo lagu yaqaan dhulgo ama dhulkeedu aad u jilicsan yahay hay'adda qaramada midoobay UNHCR ayaa horey u diiday in dhulkaasi uu yahay dhul badqab u noqon kara dad laakiin dawladda Bangladesh ayaa sheegtay in halkaasi u diyaarisay dad gaadhay ilaa 100,000 oo qof inay ku noolaadaan Bashan waa meel loogu talagalay dadka inay degaan ayaa lagu yiri wasiir markaasi Abdulmumin ayaa sheegay in dalkiisa uu la daala dhacayo meel uu kala geeyo ku dhawaad 1 milyan oo ruux wuxuu 1 milyan oo ruux oo dada meel aanu kala gelino dhul la uma hayno meel aanu fariisinana uma hayno ayuu sheegay wuxuu yiri waxa ay noqon doontaa intay nool yihiin ama intay ku noqonayaan buur dalkoodii Myanmar halka uu joogayaan oo la jeedo inaan meel kale loo haynin oo jasiiradda marna dhul go'da marka qaar koodna cusbo xoogan leh oo aan la fariisan karin dhulkeeda ay tahay meesha ay joogayaan wadadkan ayaa dhibaato aad u weyn u haysataa isla markaana waa la dureeyay waxaana dhibaatada ay ku dhacday kadib markii ay diideen isla markaana xaqireen dadkii iyo dalkii ay u dhasheen ee dalka Myanmar la yiraahdo dalka Myanmar oo ah dal budista ayaa waxa dadkan weerar ku qaaday sanadkii 2017 maleeshiyad maraycasayaal ah iyo waliba dawladda dalkaasi militarigeeda kuwaas oo cagta mariyay 10 tuulo oo dadkaasi deganaayeen kufsi baahsan dambiyo dagaal iyo foolxumooyin aad u weyn ayaa loo geystay iyadoo la dilay 10,000 sida hay'adaha qaramada midoobay ku xuquuqul insaanka aaminsan qaramada midoobay hore waxay ku tilmaantay xasuuqa dadkaasi loo geystay inuu yahay buug qoran oo kale oo ay iska caddahay waxa ku yaala taasna waxay ka dhigantay markaasi in ay caddahay sida uu hore u sheegay ergeygii arrintaasi qaabilsanaa meesha la yiraahdo Kobasaar oo iyadoo xero weyn ah ayaa waxaa la sameeyay 2017 ayaa si degdeg loo sameeyay hay'adda qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in ay dadkaasi gaari doonto goobta loo diray afyeen u hadashay hay'addaasi UNHCR Louis Donovan ayaa AFP u sheegtay inay halkaasi u sii yaacayaan si ay bal u diyaariyaan wuxuun agab ah oo dadkaasi lagula gaaro ee nafta hayso hay'adda Human Rights Watch madaxeeda guud ee dalalka koonfurta Asia oo la yiraahdo Manakshi Ganguly ayaa wuxuu ka digay haddii dawladda dalkaasi Bangladesh ay ka gabangaabsato inay dadkaasi caawiso in mustaqbalka ayadan dambi lagu soo oogi karo daawasha qiimaha leh halka kala socotaan wararka oo calaadina diblomaasiyadda qaybta labaad wararka oo calaadina diblomaasiyadda